asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada janalka bro i c t i t waa tii casharadii aan wadnay halkaas ayaan kasii wadi doonaa. maanta casharka aan qaadan doono wuxuu noqonayaa qaabka loo sameeyo userada ama maaragtay dabcan waxaa aragteen shirkadda markuu kusoo biiro qof waxaa loo sameeyaa user gaar ah, ama iskuolka markuu kusoo biiro qof maaragtay user gaar ayaa loo sameeyaa, macalinka user gaar a loo sameeya. waxaas dhanna waxaa laga sameynaya hal serverkaas ayaan maaragtay qaabka loogu sameeyo ayaan baran doonaa. ila soo casharka si toos ayaan u geli doonaa practicada. okay, saa ujeedaan server managerka inuu kacsan qeybtiisa hyper-v waa tii casharada hyper-v aan ku jirnay. waxaan geli doonaa qaabka userada loo sameeyo. stepka koowaad aad tegi doonto waxay noqonaysaa tools ayaa tegi doontaa, halkaas tools ay ku oran tahay. kadibna waxaad tegi doontaa active director users and computers ayaa tegi doontaa. click kadibna waxaa kuu imaanaya sidaan. kadib waa tii aad domainka soo sameysay, maaragtay domain cabdifataax.local ama shirkadda magaceeda. waxaan rabnaa marka qeybaha hoos yimaada in aan sameyno. kow intaadan maaragtay qeybaha gelin horta waa inaad cabdifataax.local oo qeybihiisa aad soo sameyso, oo maaragtay aad soo sameyso, aad right click ku dhahdo, new dhahdo, organization unit. kadibna maaragtay dabcan anay badana kan waa ka qaadaa si haddii wax kaa qaldamaan si toos u tiri karto, haddii kalena gadaal ayaa ka qaadan kartaa. okay, marka cabdifataax.local ayuu noo ahaa domainkeena ama shirkadda. kadib maaragtay cabdifataax ayaa waxaan sameyneynaa qeybaha hoos yimaado. tusaale ahaan shirkadda waxaa maaragtay qeybo badan ayay leedahay. qeyb service camal tusaale ahaan waxaan u sameynaa department of service ayuu qabtaa. kadib department waxaan leenahay maamulka, saas camal maaragtay ayaan u kala sameyn doonaa. marka right click ayaa ku leedahay sidii hadda aan camal, new ayaa leedahay. kadibna organization unit halkan ayaa ka dooranaysaa. kor aan qaado wax yar. waa tii hadday same step ayaa raaci kartaa, ama maaragtay waxaa sameyn doontaa new markaa dhahdid. kadib organization unit waa ka tii aan ka dooranayna, ama halkan ayaa ka dooran doontaa. halkan ku fudud markaa halkaas waa tii kartaa, halkaas waa tii kartaa. marka labada step kan ayaan hadda marka tagaynaa saad labadaba ula socotaan qaabka loo sameeyo. dabcan casharada dadkii hore ee la socday way la socdaan qaabka loo sameeyo. marka halkaas markaan tago, marka waxaan dhahnay cabdifataax.local waxaa yimaada service ayuu qabtaa iyo maamulka iyo maaragtay maxaa qeybaha waa dareemi kartaa oo shirkad ay ka kooban tahay. marka department oo services ayaan dhahaynaa, oo service ayuu qabtaa. marka waxaa us imaanaya department qeybta serviceka waxay us imaaneysaa shirkadda sidoo kale waxay leedahay maamul dabcan. dib iska soo gaabsaneynaa maaragtay department of administration. marka administration okay, qeybta maamulka iyo waxaan hadda serviceka ay qabato shirkadda ayaan sameynay. dabcan kan waa qalad, waa in isku mid ay noqdaan. ay department service ma hoos imaanaya maaragtay administratorka, meeshaas waa qalad. aan ku laabano delete aan leedahay, waa inuu halkan hoos yimaado si ay labada isku mid noqdaan. oo marka halkaas ayaa tegeysaa. kadibna waxaad ku qori doontaa administration qeybta maamulka. kadibna qeybta labadaas qeyb aan kusoo gaabsano maadaama waqti badan
waqti badan ay qaadanayso userada iyo wixii aan sameynayn. Marka department of services qaybta ay service ka sameeyay shirkadan ayaan waxaan u sameynaynaa intaas user oo shaqaalo ayaa hoos imaanaya. Maaragtay waxa ku departmentiga waxa ku sii jiro qaar shaqaalaha, qaar maaragtay maamulo ah, waxaas dhan oo maaragtay ama waxa loo yaqaano departmentkaas yaa xukumo administrationka si ay u kala weyihiin. Marka userada aan u sameyn doonaa, marka labadan department ayaa u sameyn doonaa maaragtay userska iyo maaragtay marka intaan sameyn labadooda maaragtay waa inaan sameynaa maaragtay meeshay ku separate lahayn userka oo share aan ugu dhigi lahayn. Marka ila soco waxaan tagi doonaa halkan hoos u deg halkan Windows ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa right click, kadibna waxaad tagi doontaa disk management, kadibna waxaan halkan ayaa 20 ka jaran doonaa oo maaragtay right click ayaa ku leedahay, kadibna share volume ayaa leedahay, kadib wuxuu inoo keeni doonaa maaragtay meeshii aan kaga dooran lahayn. Marka meeshaan 20 gigabyte aan ka qaadano 20 waxaa leedahay 20,000 marka intaas ayaa ka jaran doona 20 gigabyte. waa kana 20 gigabyte almost maaragtay 29 inta kale 20 ay limit tahay. Marka new aan leenahay, kadibna next ayaan leenahay, kadibna next ayaan leenahay, kadibna f ayaan noqonayaa, kadibna waxaan dooran doontaa halkan ayaa ku dhufan doontaa data, kadibna user ayaad ku sameyn doontaa data tusaale ahaan finish ayaa leedahay. waa ka datada noo sameeyay. Marka haddaan halkan tagno waxaan aragnaa halkaas ayay tegi doontaa ay ku qoran tahay folderka this computer. halkan data ayaa noogu qoran soo jeedaan data, kadibna double click ayaan ku leenahay, kadibna user ayaan ku qori doonaa oo folder ayaan u sameyn doonaa userska. way la socotaan filaya folder, kadibna users ayaan ku dhihi doonaa, kadibna right click ayaan dhihi doonaa right click kadibna properties waa inaan dhahnaa kor aan u qaadaynaa. okay right click properties halkaas way la socotaan filaya, kadibna sharing ayaa tegi doonaa advanced sharing ayaa tegi doonaa, kadibna share this folder ayaan ku dhufan doonaa kadibna dabcan permission ayaan siin doonaa. everyone waan ka tiraynaa, waxaan dhihi doonaa auto ayaad ku dhufan doontaa, kan koowaad ayaa qaadan doontaa autocreate ayaa ka dhigi doontaa halkaas. okay meesha ay halkaas ayaa ku dhufanaysaa, kan koowaad ayaa dooranaysa markasto full control iska sii ama full control c oo kaligiis permission, kadibna halkaas oo apply ayaa leedahay. okay kadibna apply, kadibna okay sharingkii markaa soo sameynay waxaad tegi doontaa halka maaragtay ay security ku qoran tahay, kadib advanced security ayaad tegi doontaa, kadibna waxaa iska diri doontaa kulli ayaa iska diri doontaa system iyo administrative bis ayaa soo dooran doontaa, kadibna meeshaan ayaad display ayaa leedahay, kadibna convert ayaa dooran doontaa permissions, kadibna labadan ayaa iska tiraysaa. way la socotaan filaya kanna ku dar labadaas bis inay kusoo haraan rabo. marka add aa leedahay, kadibna select ayaa leedahay halkan, kadibna out select. markasta kan koowaad ayaa dooranaysaa ila soco oo kan koowaad ayaa dooranaysaa
kadibna okay, kadibna modify c full assigning, kadibna subsolars ma aragtay qofka ma tegi karo maaragtay folder kale ama maaragtay user kale wixiisa ma tegi karo maaragtay kiisa bis inuu tago ama computerkiisa wixii uu ka maamul lahaa bis inuu aan siino, inuuna tagin meel kale oo maaragtay awooddaas lama siinayo. Marka full control ma siinayno, waxaan siinaynaa folderka keligiisa inuu tagi karo oo qofka wixii casharadiisa iyo wixii shaqadiisa ku saabsan inuu bis la socon karo oo meel kale u tagi karin. Apply ayaa leenahay, kadibna halkaas ayaa ku dhufanaysaa, kadibna close ayaa leedahay. meeshas inta permissionska waa soo sameynay oo policygiisa waa okay. kadib ayaan waxaan usoo laabanaynaa meeshani departmentskii userska haddaan sameyn doonaa. marka meeshaan right click ayaa ku dhigi kartaa new, kadibna users ayaad dooran doontaa, ama si toos meesha calaamadan kale kor aan qaadno waxyar si aad right click new, kadibna hoos weli kor ayaan rabnaa inuu qaadno, ama kan kor noogu qaad si hoos noogu dhig. new kadibna users ayaad tegi doontaa. marka halkaas ayaad userka ka sameyn doontaa. tusaale ahaan waxaan ku hormaraynaa service department service. waxaan tusaale ahaan waxaa ka shaqeeyo maxamed cali mohamed.cali, userkaas ayaa ka shaqeeya. okay, kan ayaan ka qaadanaya markasto, kadibna passwordka uu ku geli lahaa ayaan u sameyn doonaa. okay, password never maaragta expire ayaan siin doonaa maaragta inuu dhicin. okay, kadibna finish. waka maxamed. marka waxaan user kale ayaan sameyn doonaa. meeshii aan ka sameynayna right click aan ku dhaynay step kale ayaan sameyn doonaa oo maaragtay ka duwan. halkaas ayaa ka dooran doontaa userka ayaad ka sameyn kartaa halkaas, oo halka madax ay ku qoran tahay. kadibna waxaan sameyn doonaa kan ku xiga waxaa maaragtay xasan ayaa ka shaqeeyo oo last namekiisa uu yahay Hussein Xasan Hussein Xasan dot Hussein. okay, calaamadaas waan ka qaadaynaa. kanna waxaan siinaynaa never expired. marka passwordkiisana aan ka dhigaynaa password ayaa siin doontaa. okay, next. dabcan kuwan maaragtay department of serviceska waxay maaragtay saddexdan user oo simaanaya, administratorkan saddexdan ayaa oo simaanaya saa sheegnay. marka groups inaan u sameyno waayo. marka groups qaabka loogu sameynayo, marka right click ayaa ku leedahay halkan, kadibna new ayaa leedahay, kadibna group ayaa dooran doontaa. waxaad dhihi doontaa services dot global gl. okay, global ayaa laga wadaa. marka okay ayaa leedahay. halkan waxaa kugu soo baxay services oo dot gl oo ka tirsan groupka globalka.
marka halkii aan ka tagaynay right click halkaan new aan dhahinay aan kadib group aan dhahinay halkaan waa ka dooran kartaa marka kan aan doorano okay kadibna waxaan ku qoraysaa services dot alge ama lg d domain dl okay dl domain waxaa laga soo gabay domain local marka services dot dl okay labadaas group ayaan sameynay marka kan globalka ayaan right kale ku dheenahay aan ku leenahay waxaan kan domainka kan ayaa lagu darayaa oo globalka okay services dot services okay dl kan ku dareynaa dl ka dl right marka saas marka usoo qabsado kadibna halkaas ayaa okay ku leedahay muxuu ku dhahay the group operation successfully waa completed waa lagu daray marka groupkaas okay labadan hadda isku xiran yihiin groupiska waa noo saxsan yahay kan aan tegaynaa administratorka administrationka kadibna right click ayaan ku leenahay asigana sidoo kale new aan leenahay group ayaa dooran doonta kadibna globalka ayaan ku hormaraynaa administration dot maxalaanay dot gl gl okay global ayaa laga soo gaabiyey okay kadibna waxaan dooran doonaa group kale oo domain local ah okay dot maxaan dhahnay dot dl waa inaan kan doorana marka okay asagana sidoo kale waa maaragta uu samaysan yahay marka globalkaan tegaynaa waxaan ku daraynaa dl-ka ayaan ku daraynaa domain localka okay okay waxaan waa inaan si sax u qorta haddii kale ma kusoo qabsamayo dot maxaan dhahnay dl okay right click ma soo qabsanin anagaa qalday markuu kaa qaldama aragtid waxaad tegaysaa halkan advance okay kadibna waxaa dhihi doontaa find halkan ayaa ka raadin doontaa haduu kaa qaldamo halkaas ayaa ka sixi doontaa marka kan noo dheereey saad u aragtid okay kadibna halkan ayaa ka raadinaysa administration طبعا kor uga kasoo dhaqaa waa kana administration dl halkaas wuu kusoo gelaya marka tii hore naga tir halkan kana saxsan okay hadda waa noogu dar marka waa kaas okay leedahay kan waa noo hadda waa noo saxsan yahay wax dhan okay waay casharka halkaas ayaan kusoo gabgabanayaa dabcan userka qaabka loo sameeyo waa fahantiin aan rajeynayaa qofkaanan fahmin wixii su-aal ah waxaan nagu soo gudbin kartaan commentiga ama si toos qaybta facebook ah naga soo weydiin kartaan dabcan sheergareynta iyo subscribe-ka waa xaggiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu